magaaladani waxa ay kulmisaa tijaarta caalamka iyo kuwa waddanka jooga. Magaceedana waxaa loo yaqaanaa Berbera. Wana salaamay saaxiibayaal, waxaan rajaynayaa inaad wacantihiin. Saaka waxaanu ku sii jeednaa baan wajihi doonaa Berbera. waxaan hadda ka bixi doonaa magaalada Hargeysa. Saacaduna waa 8 subaxnimo. La socdo Madland insha Allah. magaaladani waa magaalo xeebeed dhacda waqooyiga waddanka Somaliland, laakiin magaca Berbera halkuu ka yimi amba maxaa loogu bixiyay magaaladan. waxa uu magaca asalkiisii ka yimi amba iska lahaa qabaylo oo degi jiray magaaladan qarniga ka hor oo isugu jiray boqorro iyo suldaano ayaa la odhan jiray qabaa'il Berber. dadka ama shacabka ku nool magaaladani 90% waa shaqaale. 90% ka mid ah waxay ka tirsan yihiin amba ay ka shaqeeyaan shaqaalaha dekedda. dhowr sano ka hor dekeddani sidaan ma aan ahayn, sidan uma aanay qurux badnayn. kadib markay qabsatay DP World waxay hirgelisay mashaariic ay ku habeynayso ama ay ku dhisayso dekedda Berbera. hadday noqoto dhanka mashiinada, hadday noqoto eriyada amba dadka is ballaadhiso, hadday noqoto dekedda wax kasta ay u baahan tahay. DP World. magaaladani waa magaalo ay ku yaalaan warshado badan, warshada daqiiqda, warshada kalluunka iyo warshada sawirka. waliba aanay qaar qaarna shaqeeyaan. sidoo kale magaaladani waa magaalo ganacsiyeed, waxay kulmisaa ganacsato badan waddanka, qaar dibadda ka yimaada iyo qaar waddanku leeyahay. heerkulka magaaladani waa mid aad iyo aad u kulul, waxa uu gaadhaa 41% ama 40% meelaha. waxaanu aad u kululayaa bishii 9aad amba bishii 8aad sanadka. waxay dadkani aad ay u isticmaalaan sharaabko iyo cabitaanno qabo xilliga kulaylka si aanu kulaylkaasi aanu u karin, oo ay dad badan shaqaale ama shaqeeya. xilliga habeenkii magaaladani waa cidlo, waayo dadka ugu badan waxay shaqeeyaan maalintii. gobolkani saaxil ee magaalo madaxiisu tahay Berbera ayaan hadda ka sheekaynaa ama ayaan hadda joogno. waxa uu leedahay arrin cajiiba. waxay leedahay gobolka saaxil waxa uu leeyahay 2 magaalo oo isku dhow oo haddana kala duwan. marka la eego dhanka aragtida, magaaladan aan hadda joogno ee Berbera waa magaalada ugu kulul waddanka Somaliland. sidoo kale magaalada Sheekh ee ka tirsan gobolka saaxil iyana waa magaalada ugu qabow waddanka Somaliland. waa arrin la yaabo runtii, waa arrin cajiiba. waa qabow iyo kuleyl meel ku wada yaalla. magaaladani Berbera waa magaalo loo yimaado dalxiis. waa magaalo dalxiiseed. xilliga xagaagay dadku waxay wada yimaadaan badda si ay ugu qaataan raaxo amba dalxiis gaaban. فيديو intaas ku eegyahay saaxiibayaal, aad iyo aad baan idin salaamaya. waxaan rajaynayaa inaad fiicantihiin.